caruurta iyo reerka habeen ma kaxaysaayo suuqa ma ka soo cashaysiisaayo maqaaxi ma fariisataano maxaan ku leeyahay habeen inta caruurta ka tagtaadii islaanta ma baxdaano koonaha magaalada hotel meel leyd macaanta fariisataan ma ka cashaysaano ma ku sheekaysataano bal ii war bal ninkan waalan horta war heed ma odayaal shiro oo shirayo maqaaxi ku shiraya guriga samcunta laga waayay biil wax Allah biilka waa yaala oo raashinka waaya oo qudaarta fridge-ka buuxee maqaaxi maxaa kadeedka iyo soo wareeg iyo xagga mar iyo maxaa laga faa'iideeyaa waan iska araa illa aan ka araadin de maxaan sameeyaa ya war heed raashin dhamaada iyo waxa inta iska eeg farxadda kamida romantic kamida inaad gabadhu waxay ka jeceshay ninkeeda intuu raaco suuq ay wada maraan waliba intaad dhar isku eeg baa la xirtaa isku sideeskay sidato ayaa shaar laga tushaa kadibna suuqa inta saa loo dhaxmariyo sida intaad gacanta qabsato la dhaxmariyo oo halka inta la geeyo hadana la soo celiyaa luqluqyo laga soo dusiyay halka markii la geeyo ayaa maqaaxinta la iska fariisto laga sheekbad ku sheekaysanaysan jawiga la bad waa farxadda reerka waa nolosha reerka warada ma garatay qarashka yare ka baxaya waxa ka muhiimsan farxadda jacaylka isbarashada niyahow in aad ergacali waxaan ku yiraahdaa garan maaye arrinada sida isku dhaan wallahi niyo waa runo horta inay waxyaabahaas oo dhan niyo jeceshahay waan dareemay koowde dhowr jeer way igu tirixtaa war suuqa in habeen meel ka soo cashayno oo markaasaan ku amban waa ku soo noqonaya habeenkii waa iska mashquulaba koowde waxaan ba islahaan iyo sheeko iyo TV la wada daawado iyo waxaas war wanaag waa caruur loo yinaag waa caruur caga weyn ya intaas waa arrimaha caruurta u sameeyay war waan ku fahmay naga daaniyo ya hadda kadib waa inaan asaasaqo caruur waa inaan iska dhigo ya la ilaaha illa allah si Allah yeelo iyo si Allah leh